بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وإذن سلام يا ولا داون دون فيديوهن ملك سأجوبتان بروجرام كان وحسميني وأنيقو السيد محمد عبدي ودايركتور كفيلنك إلى سميني محمد وكما حسن برنامج كان سيدة وناكسن وقيبت أغوية هاي وحان أدو طبعا فيديوهن وقلت لك المهمة ديسة وحكوسها بسيني هاي أرنت الأليرة الصومالية sababtoo ah qof kasta ama ummad kasta dunida joogta waxay leeyihiin wax oo ma aragtay ummadaas ay ku faanaan ama ay rajo ka leeyihiin anigu waxay la noqotay marka dhalinyarada Soomaaliyeed inaan barnaamijkan si gaar ah aan u sameeyo inuu noqdo barnaamij joogto ah barnaamijka dhalinyarada sababta keentana waxay tahay maanta waa ogtiin dalkeena 30 sano ku dhawaad baa waxa ka socda dagaal waxaa burburay wax badan baa naga burburay haday noqon lahayd dhaqaale iyo dal iyo dad intaba laakiin meesha runtii waxa aad fursadii macnaha heli lahaayeen meesha uga baxday waa dhalinyarada Soomaaliyeed marka anigu laftirkeyga waan soo joogay wadanka marka waana soo arkay runtii xanuunka ee leedahay markii dalkaaga iyo mustaqbalkii qof hadda soo baxaad garan kartaa uu burburo waa wax runtii iska xanuun badan anigu haddaan isku bilaabo iskiin baro anigu waxaan deganahay wadankan Ingiriiska gaar ahaan London runtii waxaan qof madax banaan ama isaga iskii u shaqeysta kana yimid markiisa hore Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ayaan ku dhashay runtii markaan de wadankii joogay dagaalka markuu dhacay Soomaaliya joogay aniga shakhsiyan waana runtii nasiib darrada waxaan ahaa dadkii yani la kulmay xilligu dhibka dhacay wadankeena hooyo waxyaabo badan oo runtii aanan rabin inaan xasuusto ayaana runtii hadda maaragtay ku soo arkay muddo adiga maaragtay aan wadanka joogay dagaalka intuu socday adigu waqti kadib dagaalkii wax yar kadib waan ka soo baxay inkastoo aan dib ugu soo laabtay haddana wadankii waana imaanay waana ka baxay laakiin runtii waxaan ujeedka aan ka leeyahay programkan wuxuu yahay saameyn intee la eg ayuu ku sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa dabadda jooga iyo kuwa dalka joogaba saameyn intee la eg baa dhalinyarada soo gaartay dabcan saameyntu way badan tahay haddaan soo koobo macnaha meesha waxaa ka baxday rajada dhalinyartii oo dhan baa meesha ka baxday waxyaabaha igu dhaliyay waxaa ka mid ah videohan inaan hadda soo sameeyo Soomaaliya waxaad la socotaan siyaasadda maanta isbedel badan baa wadankii maraya marka wax badan baan runtii soo hagaagay waan dhihi karnaa marka loo fiiriyo meeshaynu joogno shalay iyo meesha hadda aanu joogno laakiin dhalinyarada in ay soo noqoto oo macnaha rajadoodii iyo mustaqbalkoodii iyo hankoodii waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wax la yiraahdo isku tashi marka anigu waan isxilqaamay inaan maadaama aan runtii ahay qof entrepreneur ah ama dadka ma arkaysaa iskood macnaha isku xilqaamay oo meel isgaarsiiyay inaan dadka kale Soomaalida ah gaar ahaan dhalinyarada inaan runtii wixii khibradeeda ah inaan la wadaago marka waxa idin kaga baahan waxay tahay inaan saddex shay baan hadda ku soo qaadan doonaa programkan waa midka koowaad inaad horta garataan waxa loo yaqaan mindset-kaaga ama maskaxdaada runtii inaad tahay qof wax uu rabo yaqaana sababtoo anigu markaan yaraa xataa waan xasuustaa qofka dhalinyarada ah iyo asxaabteedii dadka aan la soo macnaha koray inta badan qof walba wuxuu isleeyahay wixii aad rabtay ma garanaysid waa kugu adagtaa inaad waxbarashada haddii ay noqon lahayd shaqada haddii ay noqon lahayd dhalinyarada inta badan way ku wareeraan taas marka waxaan ku soo koobayaa mindset-ka noloshu bini'aadanka waxa aad qaban karto runtii aad bay u ballaaran tahay adiga ayayna kugu xiran tahay runtii inaad ma arkaysaa wixii aad rabto aad og tahay haddaadan garan karin waqti badan baa kaa lumaya tan kale waxa weeyaan mindset-ka qofka bini'aadanka mesela waxaa rabtaa inaad noqoto pilot diyaaradaha kaxay inaad noqotaa rabtaa duuliye mise waxaad rabtaa inaad noqoto engineer kuwa guryaha dhisa mise waxaad rabtaa inaad noqoto siyaasi wax walba aad rabto inaad noqoto waxbarashadeeda horta waa inaad gasho aadan ka labalabeenin oo aad samayso laakiin marka aad sameynayso waa inaad waxaasi 100% inaad samayso macnaha inaadan wixii u sameynin 100%
haddaad rabto inaad diyaarad kaxayso inaad boqolkiiba boqol tahay haddaad injineer tahay inaad noqoto boqolkiiba boqol inaad noqoto haddaad rabto inaad siyaasi noqoto inaad boqolkiiba boqol tahay si dadkaagii iyo muxuu ahaa dalkaaga iyo nafsadaada aad wax ugu qabato waxaa kaloo jirta mararka qaar mawduucaas markaan ka soo baxo mindsetka waan soo koobayaa sababta videoan waa videogii ugu horreeyay aan rabno hordhac ahaan inaan usoo bandhigno kan labaad aan rabo inaan ka hadlo waa role modelka inaad leedahay qof role model ku ah sababta waxaa la socotaa maanta dunidan waxaa jira dad badan oo macnaha meel fiican gaaray haddaan tusaale usoo qaato sida maaragtay dadka sameeya telefoonadoo kale haddii ay noqon lahayd dadkii sameeyey ma arkaysaa baabuurtoo kale haddaan soo qaato yacni waxaasoo dhan dad baa la imaaday fikraddii laakiin waxay la imaadeen muxuu ahaa mindset adag oo macnaha wixii inay sameeyaan ay ka go'an tahay iyo dadka dabcan qof walba wuxuu leeyahay role model inuu macnaha aad hiigsato qof meel fiican nolosha ka gaaray aad wax ka barato macnaha iyadana waa muhiim role modelka markaan ka dhahayo waxa weeye qof aad ku dayan karto macnaha oo meel fiican nolosha ka gaaray waxaa la socotaan in ma arkaysaa dadka Soomaalida ah way leeyihiin dad badan oo lagu daydo laakiin waxaan ka hadlay aniga waxay tahay si qaas ah ma leenahay dad maanta telefono soo saaray ma leenahay dad maanta yani soo sameeyaan ka hadlaa sida Steve Jobs oo kale sida macnaha shabakad weyn sida waxyaabaha technology-ga hadda dunida ka shaqeynaayo kale ama gaari ha noqoto ama diyaarad ha noqoto qof Soomaali soo saaray ma jira marka taas qofka Soomaaliga ha laga rabaa inuu macnaha uu leeyahay adkeysi iyo ma aragtay waxa inaad si ma aragtay adag aad uga gaarto arrinkaas waana rooroob wey maanta oo dhan baan sugaynay waddankan Ingiriiska isma halayn karo weatherkiisa barnaamijku waanu bilaabno insha Allah waynu ku dhameysanaynaa waa raxmad ilaahay tan kale marka waxa weeyaan in ma arkaysaa ugu dambaysa aan rabo inaan soo qaato qofka bini'aadanka ah waxa ilaahay ku abuuray sabab ku abuuray dabcan inaan cibaadaysano oo ilaahay cibaadaysatid waa tun ilaahay uu ku abuuray laakiin nolosha markay timaado inaad noloshiina waxa la rabaa noqoto qof ma aragtaa nolosha wax ka gaara macnaha horumar ka gaara inaysan wixii noqon wax adiga kaliya kuga eg wax walba sameynayso waa inaad u fakarto inay dadkii kale inay gaari karaan ayadana aad iyo aad bay muhiim u tahay marka insha Allah barnaamijkeena waa hordhac way hadda waxaan soo qaadan doonaa xalaqooyin soo socda oo aan ka qayb gelin doono insha Allah taala qaybaha nolosha dhabta ah ee dhalinyarada anigu kulay shakhsiyan dalal badan dunida baan soo maray haddii noqon lahayd Europe iyo Asia sida China oo kale Malaysia wadamo badan oo Afrika waan soo maray intaan waxaan u maray waxay ahayd inaan khibrad fiican ka soo qaato nololaha kala duwan iyo bulshooyinka kala duwan runtii wax badan baan iiga baxay in badan oo maanta dhalinyaro inaan la shaqeeyo Soomaaliyeed meel kala duwan jooga caalamka ay fursad ii siisay marka insha Allah qof walba daawanaya si gaar ah ayaan maaragtay u wada xiriiri doonaa insha Allah waxa ugu muhiimsan aan ku wada xiriiri doonana waa social media marka waxaan idin leeyahay anigoo sayid ah waxaan idin rajeynayaa sanad wanaagsan waxaan idin rajeynayaa ciid wanaagsan waa maalintii ciidda baa hadda soo dhaafnay khamiistii waxaan kaloo u mahad celinayaa directorka iyo cameramanka walaalkii Maxamed Yusuf oo runtii qayb ka ah barnaamijkan oo aadna u jecel inuu dhalinyarada Soomaaliyeed si gaar ah maaragtay inuu waqtigiisa iyo khibradiisa u galiyo isagana u mahad celinaynaa waan idin soo horfariisan doonaa insha Allah isagana waqtigiisa ayuu maaragtay idinku darsan doonaa wixii uu doonayay marka inta ka horeysa waxa inoo balana inaan kulmi doono wiigi mar aan isku soo gali doono halkan ma arkaysaa YouTube-ka direct ah waxaanu ka hadli doonaa waa dhalinyarada iyo horumarintooda iyo mindsetkooda marka aad baan idin salaamayaa waa anigoo sayid ah oo ku sugan UK waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.